kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka wararka ee Somali News ku soo dhawaada tabinteena qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka dagaal qasaare xoogan sababay oo ka dhacay magaalada Beledweyne xilli dib loo dhigay kuraas ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka Hiirshabelle wararkii ugu dambeeyay magaalada Garbaharre oo mas'uuliyiinta ka socota xafiiska ra'iisul wasaare Roble laga mamnuucay inay halkaasi tagaan hay'adda lacagta adduunka oo mar kale sheegtay inay jarayso dhaqaalaha ay siiyaan Soomaaliya haddii dib loo dhigo doorashada waqtigii ugu dambeeyay loo qabtay kadib dhacdo iyo filla Soomaaliya oo mar kale dejisay qorshe dib loogu dhigayo doorashada xildhibaanada haatan dalka ka socoto qodobada iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahin doonaa wararka Somali News ee u diyaar garooba mar kale kulanti wanaagsan waa habeenimo talaada sii baxaysa Arbaca ayaa soo galaysa taariikhda waa 8 bisha 3 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna anbaqaadna fadlan muuqaalkan haddii ku soo gaara sii share garay saaxiibadada kalena si gaarsii boggan haddii aad ku cusubtaana ku soo bir si aad u hesho xogahayno halkaan ku baahino haddii aynu ku bilowno magaalada Beledweyne inta la xaqiijiyay 2 qof ayaa ku dhimatay halka 3 kalena ay dhaawacmeen dagaal ka dhacay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan faahfaahinadan laga helay dagaalka ka dhacay magaalada Beledweyne afafka hore ee xarunta maamulka gobolka Hiiraan kaas oo u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada madaxda Hiirshabelle ee ku sugan xerada Lamagalaay iyo ciidamo kamid ah kuwa ilaalada u ah musharax kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo deegaan doorashadooda ay tahay magaalada Beledweyne oo deegaan doorashada labaad ee maamulkaasi dagaalka ayaa ka dhashay kadib markii afafka hore ee xerada Lamagalaay dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka bilaabeen maleeshiyada labisan dharka ciidanka kuwa oo careysan in la xiro doorashada kuraasta tirsigiisu iyo hoob 10 iyagoo dalbaday in laga dhigo doorashada kursigaasi mid furan oo la tartami karo cid kasta kursigan ayaana waxa hore ugu fadhiyay baarlamaankii 10aad ee la soo dhaafay Cabdirasaaq Maxamed Jindi inta la xaqiijiyay waxa ku dhimatay 2 ruux oo mid shacab iyo halka askari ka tirsan ciidamada dawladda oo ku dhintay waxa dhaawacmay 3 kale oo dhinacyada dagaalamay ee Beledweyne soo kala gaaray qasaare intaas la eg dagaalka ayaa in muddo socday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa aad u kacsan iyadoo lagu wado in ay ka dhacdo doorashada qaar kamid ah kuraasta baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya xilli halkaas ay ku sugan yihiin madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabelle Cali Guulaaw iyo ku-xigeenkiisaba Guulaaw ayaa magaalada Beledweyne tagay 6 bishii Febraayo 2022 isagoo sheegay inuu xalin doono tabashooyinka reer Hiiraan ay ka qabaan maamulkiisa isagoo carabka ku dhuftay inuu la fariisanayo cid walba oo wax ka tabanaysa inkastoo dhammaanba tabashooyinkii jira badi u xaliyay khilaafka xoogan ee xilligan ka dhaqarxay madaxweynaha maamulka Hiirshabelle Guulaaw iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa Dabageed ayaana sabab u ah haatan inay soo noqdaan dagaal halkaasi ka dhaca maadaama dhinacyo kala taageersan oo iska soo horjeeda halkaasi ay ku sugan yihiin guddiga doorashooyinka maamulka Hiirshabelle ayaa kuraasi hore u soo saaciyeen oo dhawaan lagu dooro rabay magaalada Beledweyne mar kale dib u dhaga caqabada jiray inaysan doorashada halkaasi suurtagal ahayn in lagu qabto maadaama beelo iyo sidoo kale ciidamo musharaxiinta qaar kuraasta loo diiday inay u tartabaan ay ka soo horjeedaan qabsoomida doorashooyinkaasi xaaladda Beledweyne ayaa marba marka ka dambaysa ka sii daraysa waxaana hogaamiyaha maamulka Hiirshabelle la sheegay inuu doonayo in dhammaanba kuraasta 11 ay ku harsan halkaasi ay noqdaan kuwa daahfuran sida daraadeedna shakhsiyaadka ku guuleystay deegaanka uu ku matalo dagaalka maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaana imaanaya xilli khilaafka madaxweynaha Hiirshabelle iyo ku-xigeenkiisa marba marka ka dambaysa ka sii darayaan markaana Garbaharre magaalada Garbaharre ee xarunta gobolka Gadow waxa ka taagan dhankeeda xiisad xoogan oo ka dhalatay doorashada 16 kursi ee deegaan doorashada labaad ee maamulka Jubbaland taas oo dhawaan guddiga ra'iisul wasaare Roble magacaabay uu sheegay inay qiimeyn ku sameyn doonaan habka ay u qabsoomi karto doorashadaas maadaama muddo kooban ay naga xigaan waqtigii ugu dambeeyay ee loo qabtay soo gabagabaynta doorashooyinka maamul goboleedyada guddigaas oo ra'iisul wasaare Roble magacaabay ayaa gaaray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose waxayna kulamo la qaateen mas'uuliyiinta maamulkaas ugu sarreeya Axmed Madoobe hogaamiyaha soo noqod kadib oo warbixin ay la wadaageen maanta ayuu qorshaha inay ka degaan magaalada Garbaharre wafuudaas ra'iisul wasaare Roble xil saaray ka waramida iyo sida loo qaban karo 16 kursi oo caqabado badan ay ka taagan yihiin ee gobolka Gadow doorashadooda ay taasi gaar Garbaharre maamulka gobolka Gadow iyo kan magaalada Garbaharre shacabka ayaa aad u dhaleelay guddiga ra'iisul wasaare Roble magacaabay waxayna tilmaameen in laga leeyahay dana gooniya taas ayaana keentay in xiisada mar kale sii cusboonaato xogaa ayna helnay garoonka diyaaradaha magaalada Garbaharre hore waxa ugu sugnaa ciidamada AMISOM waxaana saaka la wareegay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa habeelad u abaabulan oo ka soo horjeeda maatanka wafdigaasi
sidaa daraadeed ma aysan suurtagelin inay gaaraan magaalada Garbaharey. Mas-uuliyiinta ra'iisul wasaare Roble u magacaabay in ay kasoo tala bixiyaan habka doorashadaasi loo qaban karo. Sidoo kale wararka hoose ayaa sheegaya in dhammaanba magaalada Garbaharey aysan gaari karin shakhsiyaadka la shaqeeya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Arrintan ayaana lagu tilmaamayaa inay ka dambeyso fila Soomaaliya oo doonaysa in doorashadaasi mar kale dib loo dhigo, taasi oo sabab u ah dib u dhac kale oo doorashada soo wajihi karto. Isla wararka ayaanu ku guda jirnaa arrimaha doorashooyinka madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xulafadiisa oo ka mid yahay la taliyaha amniga madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin ayaa maalmihii dambe qalalaasad doorasho ka bilaabay magaalooyinka Garbaharey iyo Beledweyne. Labadan magaalo ah deegaan doorashada labaad ee maamulada Jubbaland iyo Hiirshabelle waxaa xilligan ka taagan xiisado adag oo hakad geliya doorashooyinka kuraastii lagu qaban lahaa halkaasi. Maamulka Garbaharey ayaa taabacsan fila Soomaaliya gabi ahaanna diiday in halkaasi ay gaaraan guddiga ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble u magacaabay qiimeynta Garbaharey iyo sida doorashadaasi loogu qaban karo, maadaama muddo kooban ay ka xigto waqtigii lagu talagalay in doorashada lagu soo afmeero. Go'aanka lagu diiday guddigaas ee ka taagan Garbaharey waxaa ka dambeeya xulafada Farmaajo Fahad sida xogaha hoose ay sheegayaan oo rabin in doorashadaasi ay lug ku yeelato xafiiska ra'iisul wasaare Roble iyo sidoo kale Axmed Madoobe. Sidoo kale magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa la hakiyay 11 kursi oo ka harsaneed deegaan doorashada labaad ee maamulka Hiirshabelle, waxaana sidoo kale khilaaf xooggan oo ka dhex qarxa Cali Guudlaawe iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa Dabageed, taas oo la sheegay in fila Soomaaliya ay ka dambeyso. Si kastaba ha ahaatee, damaca xulafada Farmaajo Fahad ayaa u muuqda mid mar kale doorashada u keeni kara dib u dhac, maadaama qalalaasad doorasho ay ka wadaan maamulada kuraasta badan weli ay ku dhiman yihiin. Xafiiska ra'iisul wasaare Roble waxa uu wadaa dadaaladii ugu dambeeyay ee lagu soo afmeerayo doorashooyinka dalka si looga dhabeeyo waqtigii ugu dambeeyay ee doorashada ee shirki golaha wadatashiga qaranka la isku raacay, maadaama beesha caalamka cadaadis xooggan ay ku saarayaan. Markaana la hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa Isniintii soo cusboonaysiisay digniin kale oo ku aadan in maalgelinta Soomaaliya la jari doono haddii dowladda Soomaaliya ay sii wado dib u dhigooyinka doorashooyinka xilligan weli hare ku taagan. Doorashada Soomaaliya ayaa dib uga dhacday waqtigii hore ee 26 Febraayo. Golaha wadatashiga qaranka cusub ayaana qabtay dhamaystirka golaha shacabka in lagu soo dhammaynayo 15 bisha Maarso oo muddo kooban ay naga xigaan. Barnaamijka IMF ayaa Soomaaliya lagu wadaa in dib u eegis lagu sameeyo bartamaha bisha May, waxaana jira inay ka hor xilligaasi Soomaaliya heli doonin maamul cusub oo ka taageera isbeddelka la qorsheeyay. Muddo xileedka 4 sano ah ee madaxweynaha ayaa dhacay bishii Febraayo 2021, hase yeeshee doorashooyinka ayaa dib u dhacay waqtiyo badan ilaa hadda waxa ku gadaama doodo xooggan, waxaana jira khilaafooyin badan oo loo dhigayo isku dayo ay wadaan shakhsiyaadka doorashada saameynta ku leh. Hay'adda lacagta adduunka ee fadhigoodu yahay Washington ayaana bishii May 2020 ku dhawaaqday in deyn cafin loo sameynayo Soomaaliya iyadoo loo eegayo barnaamijka dalalka saboolka ah ee deynta lagu leeyahay. Haatan waxay ku goodinayaan haddii mar kale dib loo dhigo in dhammaanba taageerada iyo taakulaynta qaybo badan oo dowladda Soomaaliya la siiyo la jari doono, maadaama taasi sabab u tahay dib u dhacyada doorashada oo waqti badan qaadatay. Arrintan ayaa culays weyn ku noqon doonta madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana yaraan doona dhaqaale badan oo dhinacyo badan laga heli jiray. Inta ayaan ku soo gabagabanaynaa tabinta wararka aad kala socoteen Somali News mid lamid ah ciyaar inta kulmi doona nabadgelyo.